ورحمة الله وبركاته دمان بالجوين الصوماليات وحنا خنبلية ودريان ururka waxbarashadii wacyigelinta garaadmaan todobasano jirsaday ee maanta ku beegantahay todobasano guuradii ka soo wareegatay maalintii dibadda loo aasay 11 bisha January 2016 la aasaasay 10 Janaayo waa maalintii guud ahaan xubnaha ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaan 48 bilood ka hor maanta oo kale 11 January sanadii 2016 ayay ahayd markii dibadda loo taagay ururka waxbarashada iyo wacyigelinta ee garaadmaan oo ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaana ka shaqeeya howlaha waxbarashada wacyigelinta taakuleenta dadka danyarta ah siinta carruurta afurinta dadka barakacayaasha ah iyo howlo kale maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 11 January sanadda 2023 waxaa ururka u buuxsamay sanadkiisii toddobaad waxaan u curanayaa sanadkiisii sideedaad haddaba waxaa ka mid ah howlihii ururka qabtay muddadii 7 sano ahayd ee uu shaqeynayay ururka waxyaabo fara badan oo ka soo shaqeeyay sida wacyigelintii oo bulshada uu sameynayay sidoo kale waxbarashadii sidoo kale taakuleenta dadka tabaaleysan ururka waxbarashadiisa waxay u baxdaa waxaan wax barnaa ardayda kala duwan oo ah danyarta iyo asaasiga aqoonta ee maanta aan awoodin inay waxbarasho helaan ama sababo dhaqaale awgeed aga haray waxbarashada sidaas darteed ururka sidoo kale wuxuu waxbarasho si bilaash ah wax ku siiyay ardayda in ka badan 2500 arday sidoo kale wuxuu waxbarasho ka sameeyay meelaha kaamka ah oo ardayda maanta soo barakacay dadka soo barakacay ubadkoodii in heer ilaa uu gaarsiiyo wax qor waxna aqri oo 6 bilood ah muddo qofka inuu jahilnimada booska jahilnimada uu ka baxo oo ah qofka inuu wax qori karo waxna aqri karo saas darteed waxbarashada ururka inta ay gaarsiisan tahay waxa kale oo kamid ah waxaa jiro maamaha khamiista jimcada oo kale 4 bilood sanadkii waxaan qabanaa yani xirfadaha ansaarka ay gabdhaha uga faa'iideeno oo si ayagana ugu shaqeystaan gabdhaha iskuulka dhigta oo maanta aan awoodin ayagana waxbarasho si ayagana ugu shaqeystaan oo wax nolol maalmeedka ay kala hadlaan garaad maal macnaha guul Allah siiyo macnaha ilmo ciyaalka ay wax noo bareen gabdhahay wiilal heerka ay gaarsiin anigoo magacaygu yahay Kawsar Maxamed Saciid dhigta dugsiga hoose dhexe sare ee Lanwaar kana mid ah ardaydii laga gudbiyay ururka waxbarashada wacyigelinta ee garaadmaan waxaa ku soo biiray 2019 waxaana ka bilaabay heerka dhexe ee private-ka waxaa lagu qaadanayaa 4 maado oo kala ah xisaabta Soomaaliga Ingiriiska iyo Carabiga kadib waxaa la soo gudbiyay qaybta macadka oo koorsada lagu qaadanayay waxaa la soo gudbiyay Lanwaar haatan waxaan ahay fasalka fooman ee dugsiga sare wiilashan way mahadsan yihiin intaay tookay waxaan qabteen raashin ay keeneen in dhafiiqtaal ay noo keeneen way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ilaahay caafimaad khayr Allah siinsiyo ununa siin du'ayni tira intaay tookay wax nin shanteen bariidana nasi baasti iyo adduunyo iyo saabuun iyo baayaala nin shanteen timira nin shanteen ilaahay caafimaad khayr qabta siinsi ununa ilaahay daawaha ninka daro dadaal khayr qabo Allah siinsi الحمد لله إلهي ما هدي سؤال أنا الشان كلا عماش اللي يجي هذا إلهي ما هديس الشيء وأي فرنتي إلهي نقرب كينا وقالي أنا إلهي وأي أقبل الحمد لله ما هاد بلارنا نيجهايا إلهي خير الله نسيو حد بريسي كسوغناي سدوا إلهي يا أوك شالن سيو كسوغناي إلهي يا أوك
alxamdulilah mahadaan iga hayaa indhahey waa ii fur yihiin wax walbaa ku arkaa meel walbaa ku tago hayaa maanta waa faraxsanahay dhar iiga walaalahay Soomaaliga waa ii jabay waxaan leeyahay mahadsantahay wacyigelinta waxyaabaha ay ka qabato waxaa ka mid ah dhammaan iskuulaadka wacyigelinta ay ka sameyso sidoo kale baraha bulshada sidoo kale TV-yada iyo idaacadaha inta badan ay ka sameyso wacyigelinta sidoo kale waxyaabaha aan ka sameyno wacyigelinta garad maalahan arrimaha bulshada sida nabadda kaleeto inaan macnaha nabadda bulshada aan ku wacyigelino sidoo kale waxaan bulshadeena ku wacyigelinaa maandooriyaha sidoo kale waxaan bulshada ka wacyigelinaa inay ka shaqeeyaan nadaafadda deegaanka sidoo kale bulshadeena waxaan ka wacyigelinaa ugu weyn oo ka mid tahay dhanka macnaha ardayda inaan iskuulaadkii aan ugu tagno aan ka wacyigelino sidii ula dhaqmi lahaayeen macallimiintooda ardayga wanaagsan sidii macnaha macalinkiisa ugula dhaqmi lahaay sidoo kale ururka muddadii 7 sano ee uu shaqeynayay waxa uu taagnaa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed isaga oo ka dhiidinayay wax kasta oo xadgudubka ah yacni ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah 1 Maarso sanadii 2021 ururka oo ka dhiidinayo muranka dhinaca badda ah ee ku dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku saleysnaa 100 kiiloomitir square oo ay Kenya Soomaaliya ku soo faa'iideysay waxa uu ka sameeyay muuqaalkan Kenya damaceediyo badayna ku doonayso diinni anagu diinni dagaal baan ka xignaa bulshaweynta Soomaaliya hooy baraaruga bari iyo galbeed iyo mar kasta oo ku suganahay badeena aan difaacno Kenya aan ka baxsan hoggaanka ICJ iyo maxkamadda la hadlayaa garsoor heer sare iyo cadaalad baan haminaynaa xornimada Kenya yaanan noloobo caadil Allah ayo عزة iyo sharaf iyo cadaaladda adaa garsoori ee Kenya ceyrsigeediyo badeena oo ka cishana calaf nooga yeelaa calaf noogu yeelaa amiin calaf noogu yeelaa amiin sidoo kale muuqaaladii saameynta lahaa ee ururka sameeyay waxaa ka mid ahaa in uu bulshada Soomaaliyeed ka wacyigelinayay gabadhada ka dhanka ah dumarka Soomaaliyeed waa kan muuqaal ka mid ah muuqaaladii aan kaga hadlaynay ee gabadhada ka dhanka ah dumarka Soomaaliyeed hadilin dumarko adafrin hadoohan tabkana ha ku shidin hadaayeen xuquuqdo ha u dirin xawaalaha xalaawayaasha ayaan darada ku dhacday ugaarsanaya dumarkee eebbo dunida ku ciid ha qarana cadaab geli habaal looma haayee dumarkan waa mid ku dhashay kula dhalatay amaba ku dhaxday naxariis u muuji nabar ha ku deeri ha u qaadin nacab nuurkee dunida waaye garaadma horta fanka wuxuu marka hore inta badan waxyaabo fan ku bixiyo waxaa ugu weyn howlaha ururka sidii waxbarashada kale hadday tahay xarunta wax lagu baro ardayda kelideeda haddii ahaa lahayd iyo waxyaaba la xiriira tan labaad waxay tahay oo soo labayso mararka qaarkood waxaan bixinaa waxyaabo kaloo loo yaqaano sometimes sida afurinta oo kale abaaraha inaan ka jawaabno culaysyada abaaraha ka imaado oo kale dadka kaamunka jooga mararka qaarkood soo marka meelaha ugu badan oo fan ku bixino waa labadaas meelood mararka qaarkood ciidsiin waa sameynaa meelaha kaamunka ciid oo kale
marka fanka meelaha uu ku baxo taas horta ugu muhiimsan fanka meelaha uu ka imaadana horta marka la fiiriyo fanka sida joogtada u baxo oo xarunta kiradeeda iyo ku baxo wuxuu ka imaadaa xubnaha ururka yacni xubnaha ururka ayaa bixiyaan si bilaa ay u bixiyaan xubnaha ururka tirsan sidaas ayaana loogu fangarayaa maaragtay isha howlihii ururka howlahaas ugu muhiimsan tahay kiradii xarunta tan kaloo ah maaragtay ii sheegeen afurintii ama ka jawaabidda abaarihana external fund ayaa jiro oo mararka qaarkood yacni inaan dadka gudaha joogo kale oo dadka xiriirka aan la leenahay wada shaqada naga dhexayso inaan xarumaha waxbarashada lahoo kale inaan ka ururino qarashaadkii baahidii waxaan uga jawaabno mararka qaarkood sida ciidsiintoo kale afurintoo kale way jirtaa lacago oo maaragtay dad muxsiniin oo dibadda jiro ay mararka qaarkood nagu soo caawiyaan oo annaguna aan bixino way jirtaa marka si guud marka la fiiriyo marka fanka garaadmaal wuxuu ka imaadaa marka meelahaas ananka sida joogteeda ananka qarashka aan u bixino iyo qarashaadka ka imaado maaragtay adduunya qarashka ku baxaya afurintii iyo abaarihii iyo ciidsiintii wuxuu ka imaadaa qaybna anankaa ka qaybna dibaddana dad jooga muxsiniina way noo soo diraan mararka qaarkood dad gudaha jooga xiriir aan la leenahay oo maaragtay institutions maaragtay lehna waa mararka qaarkood waa nagu caawiyaan ururka garaadmaal oo ka mid ah ururada ugu muuqda islamarkaana howlaha la taaban kara ka qabtay gobolka banaadir waxaa u buuxsantay sanadkiisa 7aad waxaana goordhow u bilaabanaya sanadkiisa 8aad sanadkan 8aad ayaa ururka waxa uu tiigsanayaa horumar ballaaran oo ku aadan howlaha ururka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee naga daawanaysa bartaan waxaan idin leenahay hambalyo waxaan eebweyne ka rajaynaynaa in sanad guurada 8aad uu nagu gaarsiiyo bashbash barwaaqo iyo caafimaad iyo howlo ka ballaaran howlihii uu muddadii 7 sano ahayd oo ururka qabtay waxaan hambalyo leeyahay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca gudoomiye ku-xigeenka ururka waxbarashada iyo wacyigelinta garaadmaal waxaan leeyahay hambalyo reer garaadmaal waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan leeyahay marka dhammaan reer garaadmaal meel kastoo ay joogtiin hambalyo